إيران دجالك وكوجونتوبي أي الله ده كرا هاي الدجال من دك هو صعد يا هجامياش ودي اللي قدي لي سيدو كلا دقاله دي نسامين كويرشة دول بس عيكو قاعدة إنه السيستم كي استفاعه أو شقي مرك قريب على قطر رح مدام هو الجب هاي يعني نظام كاس هو الجب هاي نظام عصري الاستعمال هاي مرك كنت أنا واحد سلايا هاي فشل كل عي هي أده سردون كإيران runtii way adag tahay qof hogaamiye ah in si fudud lagu bartilmaameedsado runtii shir ay ku lahaayeen isaga kaliya ma dhiman ilaa 7 sarkaal oo Ali Shamkhani uu kamid yahay la taliye amniga qaranka oo taliye ciidamada ilaalada kacaanka Iran uu kamid yahay wasiirka gaashaandhigga ay kamid tahay ayaa la tilmaamay madaxweyne Trump ayaa aqalka cad xalay ka daawanayay wixii ka dhacay Israa'iil wixii ka dhacay Iran taasina waxay sababtay inuu xilli hore soo sheegay hogaamiye si fudud lagu dilo maalintii koowaad ee dagaalka taasi waxay ka dhigan tahay fashil ku yimid nidaamkii difaaca ee wadanka si Iran waxyaabaha cajiibka ee shalay la arkay waxa kamid ah diyaaradaha F-35 oo hawada magaalada Tehran dhex mushaaxay taasoo markii hore qalqal gelisay nidaamka wadamada khaliijku hadda wax u qabta kuleelku markuu gaaro inay dhaxayaan Mareykan dagaalka naga jooji laakiin muhiimaddu waxa waaye dawladda Iran ay ka dan leedahay saldhigyada ah banaanka ku yaala wadamada khaliijka oo saldhiga al-Udeyd oo ciidamada Mareykanka ay degan 10,000 oo askari in la baabi'iyo waxay ka dhigan tahay in gobolka uu galay jiha cusub oo dagaal ah warbaahinta dalka Iran ayaa waxa ay si rasmi ah u xaqiijisay warka ku saabsan geerida hogaamiyihii sare ee dalkaasi Ayatollah Ali Khamenei waxa sidoo kale dalkaasi lagaga dhawaaqay 40 maalmood oo baroordiiq ah arrintan waxa ay ku soo beegmaysaa weerar si wada jir ah ay u fuliyeen Mareykanka iyo waliba sidoo kale Israa'iil lagana fuliyay ilaa iyo 22 gobol oo ku yaala dalkaasi Iran uguna weyn tahay magaalada Tehran ee caasimadda dalkaasi xilliga la beegsanayay iyo waliba sidoo kale saraakiisha kale ee ay beegsadeen intii weerarkaasi uu socday darbaaxadii Iran ay riday dalalka gobolka Khaliijka iyo waliba sidoo kale xiisada guud ee gobolka bariga dhexe oo dabka hulaaqmayo ayaan falanqeyn kooban ku sameyn doonaa oo stuudiyaha koobaad ee telefishinka Somali Cable uu la sugan yahay Mustafa Warsame Sabriye oo si dhow ula socday xiisada ka aloosan gobolka bariga dhexe Mustafa waa kugu soo dhaweynayaa telefishinka Somali Cable ugu horeyn maxaan ka ognahay Khamenei runtii Cabdiqani waa mahadsan tahay Somali Cable-na waa mahadsan yihiin runtii waxa ay ahayd shalay markii la dilay laakiin warbaahinta Iran way qarinaysay in la dilay hogaamiye Ayatollah Ali Khamenei Ayatollah Ali Khamenei waxa uu dhashay sanadkii 1939 waxa uu ku dhashay magaalada Leera Mashhad oo ku taala waqooyiga ee wadanka Iran waxa uu ka soo jeedaa qoys diineed sabool ah oo Shiica ah waxa uu bartay daraasaadka Islaamka waxa uuna si dhow ula shaqeyn jiray hogaamiye isaga ka horeeyay ee Khamenei 60meeyadii iyo 70meeyadii waxa uu aad uga soo horjeeday shaahi Iran oo dhowr jir ayaa la xiray markii dambe oo kacaanka islaamiga Iran 79kii qabsadana kadib waxa uu noqday 82kii ilaa 89kii madaxweynihii Iran ayuu noqday markii dambe ayuu noqday hogaamiyaha guud ee kacaanka islaamiga Iran marka waxa uu ahaa nin mayl adag oo aragtida reer galbeedka ka soo horjeeday sidoo kale wuxuu ahaa ninkii ballaariyay gobolka Shiicada inuu ku faafto oo waxa uu sameeyay ciidan leeyahay Qudus oo ka dagaalama wadamada Syria, Iraq, Yemen, Lebanon iyo xitaa Falastiin wayahay xilliga la beegsanayay waxa la sheegay in uu xafiiskiisa ku sugnaa waxay ka dhigan tahay fashil ku dhacay hay'adaha sirdoonka ee Iran runtii way adag tahay qof hogaamiye ah in si fudud lagu bartilmaameedsado runtii shir ay ku lahaayeen isaga kaliya ma dhiman ilaa 7 sarkaal oo Ali Shamkhani uu kamid yahay la taliye amniga qaranka oo taliye ciidamada ilaalada kacaanka Iran uu kamid yahay wasiirka gaashaandhigga ay kamid tahay ayaa la tilmaamay waxyaabaha cajiibka ah Maxamedow intii socotay dawladda Iran mareen habaabinta isku sameeyay wax kamid ah duqeyntu waxay bilaabatay 8 daqiiqo qiyaastii waxa la sheegaa in 200 oo diyaaradood oo ka kacay hawadaha wadamada Carabta inay isticmaalayeen ilaa waxa la bartilmaameysay 500 oo goobood oo ku yaala gudaha wadanka Iran Tehran ha u badnaato 5 magaalo ay kamid tahay Tehran Isfahan iyo magaalada leeyahay Qom oo macbadiinta ay ku leeyihiin Shiicada marka waxyaabaha cajiibka wax kamid ah in dawladdu dhahaysay waa uu ka baxiyay hogaamiyaha Iran kuma jiro caasimadda laakiin markii dambe shaki waxa dhaliyay qoraalada ay sameynayeen warbaahinta reer galbeedka sida Israa'iil oo tuhun gelinaya in la dilay madaxweyne Trump ayaa aqalka cad xalay ka daawanayay wixii ka dhacay Israa'iil
wixii ka dhacay Iran taasina waxay sababtay inuu xilli hore soo sheegay saacadda la xaqiijiyay waxa ay ahayd qiyaastii 4 saac waxay 10 iyo barka saacadda geeska Afrika xilliga Soomaaliya ay suxurta ahayd ay dawladda Iran xaqiijisay in la dilo hogaamiyaha Ayatollah Ali Khamenei marka Ayatollah Ali Khamenei waxay ka dhigan tahay dhamaadka dawladda Iran dabcan waxaa soo baxay in uu si rasmi ah u geeriyooday hogaamiye Khamenei geeridiisa maxay ka dhigan tahay ma bedeli doontaa jihadii siyaasadeed ee arrimaha dibadda ee Iran mise istiraatiijiyadii ayaa sii jiri doonta runtii waxay u eg tahay markaan wax daraaseeyo habkii loo maray hogaamiyaashii carabta Saddam Hussein iyo Qadaafi iyo Saalax Ali Yaman ka talinayay ayay u eg tahay maxaa yeelay hogaamiye si fudud lagu dilo maalintii koowaad ee dagaalka taasi waxay ka dhigan tahay fashil ku yimid nidaamkii difaaca ee wadanka si Iran waxyaabaha cajiibka ee shalay la arkay waxa kamid ah diyaaradaha F-35 oo hawada magaalada Tehran dhex mushaaxay taasoo markii hore qalqal gelisay nidaamka inkastoo dawladda Iran falcelin culus ay sameeyay saacado markay ahayd 10 daqiiqo saacada geeska Afrikada bari ayay duqeyntii ugu horeysay waxa ay weerartay ilaa 5 saldhigyo xarumo military oo ku yaala Middle East sida wadamada Qatar, Bahrain, wadanka Imaaraadka Carabta, Saudi Arabia iyo Iraq marka bartilmaameedkaasi runtii ma noqon mid lagu difaaciyay inkastoo meelo badan ay dawladdaasi garaacday laakiin haddana xanuunka gaaray dawladda Iraq ee Iran lama mid ah waxa gaaray Israa'iil meelo badan la duqeeyay xarumo badan xalay ilaa 70 guri ku yaala magaalada Tel Aviv ayaa hulcisay laakiin qasaaru aad u yaray Iran ilaa hadda dadku waxay sheegayaan in ku dhawaad 200 qof inay ku dhinteen waxa kamid ah shal waxyaabay warbaahinta qabsanayay 60 qof oo ciyaal iskool ah gabdha ah in dugsigoodii la duqeeyay oo waliba hadda tirada 100 u dhaafis marka iyadana waa cajiib sidoo kale waxyaabaha cajiibka ay xalay ka dhacay Middle East waxa kamid ahayd magaalada Dubai oo ku yaala dhismaha ugu dheer caalamka oo iyadu ay dul marayeen sawaariiqda Iran sidoo kale meelihii xalay la bartilmaamay sida waxa kamid ah dekada ugu weyn ee wadanka Imaaraadka Carabta ee Jabal Ali sidoo kale waxa kamid ah xarun hay'adda CIA-da Mareykanka ee ku leedahay Dubai sidoo kale waxa kamid ah dhismaha Burj Arab oo ahaa dhismayaasha ugu caansan astaamaha magaalada Dubai ayaa iyadana la tilmaamay sidoo kale Bahrain ayaa ku tilmaami karnaa wadanka ugu weyn ee dhibaatada ugu weyn ee ka soo gaartay duulaanku intuu socday waxa la burburiyay saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Mariniska ee deganaayay sidoo kale waxa la burburiyay garoonka Bahrain garoonka Kuwait ee Bahrain ayaa la burburiyay sidoo kale Kuwait garoomadooda ayaa la duqeeyay Imaaraadka Carabta Dubai dhammaan falaatiyadii dhan way hakadeen طبعا خليجك وما يسن أبيل إيران خليجك وحو أها ماشى ديارadaha Mareykanka ka soo kacayeen oo duulaanka ugu badan Iran laga soo qaaday marka target kuna masaafo ahaan marka fi xuduud ay leeyihiin marka waa fududeed in la targeteeyo marka xalay waxay ahayd mucjiso cajiib ah wuxuuna ahaa wuxuuna ekaa duulaankii Saddam Hussein 2003 lagu qaaday sidee u saameyn kartaa marka awoodda midnimada gudaha Iiraaniyiinta ah marka loo fiiriyo warka ku saabsan in uu hogaamiyahoodii booska uu baneeyay gaar ahaan IRGC oo ah ciidanka ilaalada kacaanka runtii xanuun badan ayaa Iran gaaray wayna saameynaysaa mid ka soo waqsad doontan oo maxaa yeelay hogaamiyihii laga shidaal qaadanay inkastoo dadka siyaasadda naqdiga ay leeyihiin hogaamiyaal kale ayaa la sii diyaariyay oo muddadii 40 sano ninkan meeshan joogay uu ogaa in la khaariji doono maalin marka hogaamiyaal laakiin sidii u mayaal adeegnaa ninkan Khamenei aanu isma dhihi karo hogaamiyaal kale ay heli doontaa runtii Iran waxa gaaray mucjiso waxa lagu tilmaami karo oo adeeg ah oo runtii ay ka san ku soo waaqsi kareen maxaa yeelay hogaamiye in la dilo ma sahlano inta badan hogaamiyaashu waxay joogaan meesha ugu dambeeyay dagaalka ma ahan saraakiil ciidan oo dagaal hogaaminaysa marka laakiin dibka ugu weyn ee Iran soo gaaray waxa waaye dhanka sirdoonka oo sirdoonka Iran ayaa la dhex galay oo shalaytu waxaan arkaynay dawladda Iran oo soo qabqabanaysa sirdoon ay musaadka Israa'iil oo la dhahay waxay hagayaan qaarkood diyaaradaha iyo howlgalka socday marka Iran tan waxay ku tahay dhabar jab sidoo kale waxay ku tahay in saameynteedii gobolka laga takhaluso marka howlgalkani runtii waxyaabaha cajiibka ah magacyo kala duwan ayaa loo baxshay saacadu howlgalku bilaawday Mareykanku waxa uu ku tilmaamay howlgalkan inuu yahay howlgalka ka hortagga hanjabaadda Iran halka Israa'iil ugu magac dartay waxa la yiraahdo Roaring Lion ama arga guuxa halka dawladda Iran ayadoo ugu magac dartay howlgalkaasi ay qaadaysa xalay ilaa maanta ballanqaadkii dhabta ahaa
marka wuxuu ahaa howlgal labada dhinacba ay wajahayeen culaysyo dhaqaale iyo miisaan culus ah marka Iran runtii hogaamiyaashaas laga dilay waxay ka dhigan tahay in si fudud maalmihii koowaadba laga takhaluso hogaamiyaashoodii Israa'iil iyo dabcan Mareykanka hadafkooda istiraatiijiga ah ma gaareen mise arrintan waxa ay dhab ahaan furi kartaa dagaal ballaaran oo gobolka ka qarxa استراتيجية وهرسي واحد إنك تخلصون هجامياش إيران ويجارين تصل به كرام ده هجامية وسريع آية الله على خميني إدلين ويجارين حدود دجال كوسي السعودان عرضوا حال السويدين تورا مستقبل كذلك إيران وإيدين هجامياش هرب بنانكا دي بدأ أي هريلو قدر حزب الله لبنان إيميل بدن الجدلي مرك حد إن هجامياش هرادي اللي قدروا وحيكون كانت هاي لما كحكمك دولة إيران runtii Mareykankuna qorshahaasi waa qorshe hore u sii dejiyay intuusan dagaalkani bilaaban waxa markii hore soo xirmay wada hadallo ilaa 3 wareeg ah oo Geneva iyo Cumaanka kala dhacay oo looga hadlayay qadiyada inay dawladda Iiraan isdhiibto sheego ma ahayn xataa uraniumka gorgortan laga magalay isdhiibay ahayd iyaguna waxay dhahan isma dhiibeyno marka dagaalku wuxuu ahaa dagaal hore Mareykanku u sii qorsheeyay waxyaabaha cajiibka ah ee warbaahinta Mareykanka marka fiirsadid ku kalifay madaxweyne Trump inuu dagaalkaasi galo dadka qaarkood aaminsan in madaxweyne Trump laga hayo feelasha la yiraahdo Epstein Jefferson oo ah dawladda Israa'iilna qaarkood hayso marka waa lagu cadaadinayay intuusan teerimkiisu dhamaan in laga takhaluso Ayatollah Ali Khamenei in nidaamka Iiraan gabi ahaan waya dabcan waxa jira kooxo ay taageerto dawladda Iiraan oo ka dhisan gobolka gaar ahaan dalalka Lebanon Yemen iyo waliba sidoo kale Iraq talaabooyin argos ah ma sameyn karaan runtii talaabooyinkaasi yani hogaamiyaashaas ama ururadaas meelaha joogaan kuwa ugu awoodda weyn Xisbullah hadda waa laga takhalusay oo awood hadda ay Israa'iil ku weerarto malahan waxa laga cabsi qabo xuutiyiinta Yemen oo shalay ku dhawaaqay in la xiri doono gacanka badda cas sidoo kale waxa heega la geliyay ila waraadada Sirdoonka saldhig weyn ee ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Afrika kan ugu weyn Afrika oo ku yaala Djibouti inkastoo madaxweynaha Djibouti yiri de meesha saldhig uma yaalay garaash Trump uu leeyahay ayaa ku yaala laakiin haddana cabsi ayaa laga qabaa in ayaduna la weeraro marka way adeegsan karaan xuutiyiinta ayaa ugu weyn hubka maanta ugu weyn ay adeegsan karaan xuutiyiintuna awood waxay u leeyihiin in badda cas ay soo xiraan Iiraanna ayaduna waxay xiratay gacanka Hormuz oo 120 shidaalka dunida uu maro marka waxa kaliya ay adeegsan karaan waxa waa xuutiyiinta Yemen inta kale waa laga soo takhalusay dalalka khaliijka gaar ahaan Qatar Imaaraadka Carabta Kuwait Bahrain iyo Sacuudiga weeraro ayaa dabcan gaaray iyada oo Iiraan ay leedahay saldhigyadii Mareykanka iyo xulufadiisa gobolka waa bartilmaameed sharci ah falcelin noocee laga fili karaa ma in ay isdifaacaan mise inay dhexdhexaadin qaataan runtii weli lisma gaarin laakiin culayska gaaraya wadamada khaliijka ah iyo culayska Israa'iil maanta gaaraya waxa badan wadamada khaliijka maxaa yeelay masaafo ahaan waa isku dhow yihiin taasina waxay sababaysaa in burbur dhaqaale uu ku soo gaaro tusaale ahaan Dubai oo kala oo ahayd magaalada fantasaha adduunka magaalada milyaneerada ah xalay wada ogeeyo kala cararka iyo qaska ka jiray iyo dhaqaalaha adduunka saameynaya marka wadamada khaliijku hadda wax u qabta kuleelku markuu gaaro inay dhaxayaan Mareykan dagaalka naga jooji laakiin muhiimaddu waxa waaye dawladda Iiraan ay ka dan leedahay saldhigyada ah banaanka ku yaala wadamada khaliijka oo saldhiga Al-Udeyd oo ciidamada Mareykanka ay degan 10,000 oo askari in la baabi'iyo waxay ka dhigan tahay in gobolka uu gal jiha cusub oo dagaal ah maxaa yeelay shalay warbaahintu waxay qoraysay Iiraan waxay dhaheen hub lama gaarin Mareykanka laakiin waan weerar lahayn laakiin masaafo ahaan Mareykanka maadaama masaafo dheer ay waxa kaliya ay duqay kareen waxay ahayd inay beegsadaan danaha Mareykanka ee gobolka bariga dhexe oo wadamada khaliijka sida Saudi Arabia Kuwait Bahrain iyo wadamada kale in la taarget garaysto barnaamijka mustaqbalka oo nuclearka Iiraan muxuu ku dambeyn karaa runtii wuxuu ku dambeyn karaa haddii duqeymahani soo socday in gabi ahaanba laga takhaluso oo sidii wixii Saddam Hussein 2003 lagu sameeyay ayaa lagu takhalusi doonaa maxaa yeelay marmarsi ay u tahay dawlado badan hadda dagaalka waa ku soo biireen oo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska shalay waad ogeed inuu dagaalka si toos ugu soo biiray oo Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Israa'iil inay dagaalka qayb ka yihiin wadamada reer galbeedkuna mid ay ugu soo biirayaan marka waxay ka dhigan tahay in barnaamijka uraniumka ah khatar ku jiro mustaqbalkiisa dabcan waxaan la soconay in Iiraan cunaqabateyn ay hore u saarneyd haddii hadda dagaalka gobolka uu sii socdana adduunka oo dhan buu ku faafayaa isbarbardhig markaad ku samayso cunaqabateyntii hore u saarneyd iyo xayiraadaha cusub ee dhaqaalaha dunida soo food saaraya saameyn intee la ka dhalan karto runtii saameyn xoog leh ay ku yeelan doontaa inkastoo hore cunaqabateyn caalami ay saartay dawladda Iiraan haddana
dagaalkan wuxuu ku sii hidayaa haddii laga guuleysto dagaalka sidoo qorshuhu yahay Trump waxay leeyihiin waqti cayiman inkastoo isu qaban laakiin hadda sida dardartu ku socdo iyo qiimuhu haddii sii socdaan wixii Ciraaq ka dhacay ayaa ka dhici kara laakiin haddana saameynta dhaqan-dhaqaale waxay noqonaysaa mid xoogan maxaa yeelay wadamadii hadda wad ogtahay wadamadii baawarka lahayd cataa Iran dushay ka daawanayaan cambaareen cataa ma jirto Turkiga oo isagu waxa wadanka kaliya ay markastaba Iran markii la weerar dhigi jiray isagu wax u qabtaa inuu si diblomaasiyaysan ugu dabaalanayo Turkiguna doorkiisa dhexdhexaadintiina meesha waa ka baxay oo saliyada ciidamada Mareykanka ee Turkiga ku leeyahay shalay waa la isticmaalay diyaaradaha ka kacay oo duqeynaya Tehran iyo magaalooyinka Asfan iyo Qom marka waxay ka dhigan tahay in qabateyntaas adag ee lagu haayo Iran iyo dagaalku sii socdo in meesha uu ka baxo nidaamka gacanka Iran 40 sano ka bacdi oo la aasaaso jamhuuriyad reer galbeedku iyo aaba iyo hooyo u yihiin wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga oo kale waxa ay shalay soo saartay bayaan ay ku dalbanayso in si degdeg ah xiisadda gobolka ka alaasan loo joojiyo miiska wada hadalkana loogu soo noqdo doorkooda dhexdhexaadinta ah ay qaadanayaan taas waa ka gudbaynaa dabcan waxaad ka dhawaajisay xulufada dabcan Shiinaha iyo sidoo kale Ruushka ayaa aad gacan saar u lahaa Iran ma kordhin karaan taageeradooda Tehran si ay uga hortagaan saameynta reer galbeedka mise dusha ay ka daawo doonaan runtii anisan isleeyahay maadaama security councilka ay ku jiraan Mareykankuna uu muddo dheer Iran u dhahay hanjabaad media isku marinayo hadda wax u qabtaa inay wadamadaasi awoodooda ay tahay bis inay cambaarayaan ama ay dusha ka eegtaan aysan Iran wax u tiri karin Iran dagaalka waa ku ogoontoobay ayaa la dhihi karaa maxaa yeelay dagaal muddo kooban socday ayaa hogaamiyaashoodii laga dilay sidoo kale dhaqaalahoodiina saameyn ku yeeshay oo hadda Iran mararka qaar waxyaabo cajiibka ah wax kamid ah yani dadka Iiraaniyiinta oo mararka qaar ku farxaya hogaamiyihii la dilay qaarkood dad baroranaya waa arkaynay laakiin media qaarkood wuxuu soo qabanaya dad ku farxaya marka in Iran laftirkooda kacdoon gudaha dad diidan ugu jiro ayaa taas xaqiijinaysa sidoo kale waxyaabo cajiibka ah Netanyahu uu sheegay wax kamid ah howlgalkii waan dhameystirnay shacabka Iran waa inay kacaan marka oo ay iska qabtaan hogaamiyaha iyo kacdoonka marka maadaama annagu xeendhaabkii aan soo xirnay waxa muhiim ah in dagaalkii gudaha ay shacabka Iran ay bilaabaan si weyn la isku weydiinayaa waxyaabaha mar walba soo dedejiyo in qasaaro xoogan uu gaaro Iiraaniyiinta mar walba oo dagaal Israa'iil ay galaan oo Mareykankana uu gadaal ka taagay ama daaha gadaashiisa waxaan xasuusanaa dagaalkii June oo 12 maalmood socday saraakiishii looga dilay Iiraaniyiinta hadda oo hogaamiyahoodii Khomeini la dilay iyo saraakiil kale wasiirka difaaca iyo taliye ilaalada kacaanka iyo ay ku jiraan maxaa jabka intaas la soo dadajiyay mar walba runtii ani waxaan isleeyahay tan iyo markii xukunka uu ka degay madaxweyne Maxamed Axmed Najaat oo dadku aad xalay warbaahinta u hadlaayeen wuxuu sameeyay unug ka tirsan ciidanka sirdoonka oo aad u dabageli jiray Mossad-ka Israa'iil laakiin tan iyo markuu xilka ka degay waxaad u qabtaa in hay'adahaasi aysan shaqaynin oo ama howlgab ay noqdaan marka waxaa systemka Iran waxaa dhex galay Mossad-ka Israa'iil oo sector kasta u dhex gala marka taas fududeynaysa in bartilmaameedyada hogaamiyaasha meelaha ku shirayaan dhan la sameeyo sidoo kale waxyaabo cajiibka ah dhibka Iran u keen wax kamid ah qalabka ay isticmaalayaan oo ah qalabka difaaca cirka oo qalab howlgab ah maadaama cunaqabateyn caalami ay saaranta taasoo sababaysa in la taraaraxo maxaa yeelay 8:00 saacadda localka Iran markay duqeyntu bilaabatay muddo 2 saac ay ku qaadatay inuu systemkii isdifaaco oo shaqeeyo marka horey baa laga taraaraxay maadaama howlgab yahay oo yani nidaamkaas howlgab yahay nidaamyo casri ah la isticmaalayo marka runtii ani waxaan isleeyahay arinta sirdoonka kumilanka sirdoonka ay dadku warbaahintu aad u sheegayaan oo ah sirdoonka Mossad inuu sida dhilqihii farqaha uga bixiyo sector kasta oo ka tirsan dawladda Iran taas fududeynaysa in hogaamiye maalinta koobaad hogaamiyada laga takhaluso hadduu dagaalku sii socdana waxa macquul aniga sida ila ta aragti ah in dagaal gudaha ah kacdoon laga sameeyo jamhad laga abuuro Turkiga laga soo gali karo Ciraaq laga soo gali karo iyo meel kale wadamada khaliijka xataa laga soo gali karo wixii Saddam Hussein lagu sameeyay Saddam Hussein bilowgii dagaalku wuxuu ahaa qiimo sidaan camal oo dadku ay ka daawan jireen maanta waxaan si wanaaga in dadku telefoonada smartiga live ku jiraan laakiin xilligaas dhalooyina laga daawan jiray marka waxa macquul ah in maalmo kadib duqeymaha haday socdaan in la sameeyo kacdoon gudaha ah kadibna xukunka Khomeini iyo Ayatollah iyo Shiicada la soo afjar muddo 40 sano kadib jawaabta uu Trump ka filan karo marba hadii Khomeini meesha uu baneeyay ma waxa ay eegi doonaan hogaamiyaha kala imaanaya mise
وسي سocon doontaa hawsha sida qorshuhu yahay Trump waxay ahayd guud ahaan in la dilo Khomeini iyo in nidaamka uraniumka la baabasho targetkooda waa intaas iyo xukunka in laga tuuro marka laba waa u rumooday oo hadda uraniumka inta badan naafo waa la gaarsiiyo magaalada Isfahan meelii ugu weynaayo qarxiyada ay ka dhacayeen ay kamid ah hogaamiyihina waalidiin waxa kaliya ee la sugayo waxa waaye in gudaha dagaal uu ka qarxo Iran isbedelka la filayo in la soo saaro oo bedelka u noqon kara Khomeini maxaa laga filan karaa runtii inkastoo dadka aad siyaasadda u taxliiliyay Iran ay leeyihiin ninkan hogaamiyahaasi hogaamiyaal kale oo Khomeini ayuu diyaariyay laakiin haddana adeegii iyo mayal adeegiisi runtii aniga ismalihi dad bedeli kara ayaa la heli karaa maxaa yeelay wuxuu ahaa hogaamiye mayal adag wuxuu ahaa hogaamiye cadow u arka Israa'iil iyo Mareykanka taasoo hurdadii ka salaleen marka taas waxay cadeynaysaa inuu ahaa hogaamiye muddo dheer Iran soo hogaaminayay uraniumka Iran aabo u ahaa inay Iran ku riyoto uranium inay hesho la difaaco masraciyaha caalamiga laga difaaco sidoo kale danaha Iran mandaqadan bariga dhexe iyadana la difaaco runtii nin taas isku hay kara way adagtaa inay ka soo baxdaan silayahay xagee ku dambeyn kartaa xiisadda runtii mustaqbalka wadanka Iran ani waxa silayahay waa 50-50 way u badan tahay in dagaalkaasi looga guuleysto dawladda Iran adkaato yani waxaan kala jeedaa in ay dalkooda difaacdaan laakiin la naafeeyo waa macquul sidoo kale waxa macquul in gebi ahaanba laga takhaluso sidii Saddam Hussein sidii Qadaafi sidii Abdal in la marsay ay u badan tahay maxaa yeelay sahnuuniyiinta iyo dawladda Iran markasta waxyaabo ku haminaya wax kamid ah hogaamiyaasha mid al-istigo dhan in laga takhaluso oo la waayo awood la barbarnta Israa'iil marka taasina hogaamiyihii ugu dambeeyay waa tii xalay laga takhalusay marka Iran waxay u tahay maalin madow shacabka Iranna muddo 40 maalmood ah ay barodiiqa ay galeen taasoo ah hogaamiyahoodii masaajidada iyo macbadiyada iyadana in dib ugu laabta marka Iran marka ma degdeg baa loo soo magacaabi karaa mise waqti qaadan kartaa inta barodiiqaas lagu jiro waqti qaadan doonta laakiin hogaamiyaasha dagaalka oo taliyaha ciidanka iyo militariga iyo sirdoonka iyo adliis wala bedelaba dad cusub ayaa la keenay wajiyo cusub Mustafa Warsame Sabri ayuu ahaa oo stuudiyaha telefishinka Somali Cable ee kula sugnaa waxaan la faguraynay xiisadda ka soo korodhay gobolka bariga dhexe gaar ahaan weerarkii shalay Mareykanka iyo Israa'iil oo wadajira ay ku qaadeen Tehran iyo waliba sidoo kale gobolada dalkaas Iran ku yaala iyo si guud dilkii hogaamiyihii sare ee dalkaasi Ayatollah Ali Khomeini iyo saraakiishii kale oo wasiirka difaaca taliyay ciidamada ilaalada kacaanka iyo saraakiil kale ay ku jiraan sidoo kale in ka badan 100 ayaa lagu soo waramayaa in ay ku geeriyoodeen xarun iskuul hoose dhexe oo gabdhaha wax lagu baray oo dalkaasi Iran ku yaalay sidoo kale lanqeyrta cas waxa ay sheegaysaa guud ahaan dhimashada in 200 ay kor u dhaafayso Iran isdifaacidooda ayaa socota iyada oo marba marka ka dambaysa dalalka xulafada iyo waliba saldhigyada u ah Mareykanka iyo Israa'iilba ay beegsanayaan oo ay ugu weyn tahay saldhigga Mareykanka uu ku leeyahay Doha Qatar sidoo kale Abu Dhabi Imaaraadka Carabta iyo magaalada Manama oo ah dalka Bahrain iyo guud ahaanba Sacuudiga Kuwait iyo dalalka kale ee gobolka ku yaala dabcan wixii soo kordha halkan ayaa noo madal ah waxaan ahaa Maxamed Cabdiqani waan u mahad celinayaa Mustafa oo barnaamijka falanqaynta gala qayb galay tan kulan dambe nabadgelyo adeegga maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeegga maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 afargees dal iyo dibadba kaga adeego Visa kaarka Salaam Somali Bank